الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي بaa maxad weyn ay u sugnaatay 2025 bishii January oo maanta 17 oo maalin Jimco ah anigoo ah Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo Soomaaliyeed waxaan ka hadli doonaa dhowr qodob. qodobka ugu horeeya cid kasta haday tahay ciidamada Soomaaliya oo ay kamid tahay kuwa Puntland iyo kuwa dawladda dhexe iyo kuwa Jubbaland iyo kuwa Galmudug iyo kuwa Hirshabeelle iyo kuwa Koonfur Galbeed cid kasta oo dagaal ku jirto argagixisada dagaal kula jirta ayaan u hambalyeynaya. cid kasta oo nimanka dagaal kula jirta waan u hambalyeynaya. nimankaasu indhaha maanta aan leenahay nimankii noo yeelay way oo dadka nagi baabiyay oo qaraxyo ku xasuuqay oo rag iyo dumar baabashay oo naf iyo maal baabiyay. ilaahay dartiisana waxay kula kulmi doonaan uqubo insha Allah waana la iska celi doonaa. hadda kuwa ugu dambeeyay ciidamada Puntland si weyn aan ugu hambalyeynaya ee dagaalka adag kula jira. dagaalka hal kordhiyo cid kasta oo dagaal kula jirta nimankaas balaayadana ha loo kaalmeeyo ha la saacideeyo. sidaas ayaan ku dardaarmay. markaan taa ka baxo waxaa dhacday ninkii Xasan Macalin Gurguurte oo fashilmay oo dalkii Soomaaliya oo isla socda loo dhiibay oon maanta qof la socotaa jirin oo uu kala diray oon maanta qof la socota la arag oo muslim iyo gaalba yaaban yihiin oo ilaahay ninkan xagee u joogi jiray xagee ka yimid xagee u socdaa ayaan dhaweed waxa uu dhihi jiray cid kasta oo Itoobiya taageerta iyo cid kasta oo Itoobiya wada hadal la gashaa waa dambile ayuu dhihi jiray. waad ogtihiin adinka iga marqaatiya Soomaaliya caalamka iga marqaatiya soo arkayay oo Itoobiya asoo ninkii Itoobiya madaxda ka ah Abiy Ahmed oo shumin ku bilaab iyo inuu sujuud qabrigaan istaag oo qabriga u sujuud ciidamo la leeyahay waa ciidamadii badda oo dhar cad wato Itoobiyaan u sujuud waxa soo dhamow sameey asagiyo waxba ku xirnayn oo dhintay oo qaawan oo ku soo laabtay Soomaaliya xamar oo yimid madaxtooyadii oo galay nimankii madaxda ahaa oo ninkii Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Cabdi Ismaaciil Samatar ragii aqoonyahankii iyo maaragtay oo aniga raggaas ugu soo biiray raggaas aniga ugu soo biireen aniga ayaa ahay ninkii Xasan Macalin Gurguurte qof mucaarada ninkii ugu horeeyay aniga u ahay asagoo wasiir dhisanaan iri kan waxba sooma wado argagixisada inta xabsiga ka soo bixiya maaragtay leh waxaan sameynaa wasiirkii waqaafta iyo diinta TikTok aan ka dhiga maxuu ahay kii magaciisi maxuu ahay wasiirkii gaashaandhigga waxaas anigu ma taageerayaan wax la taageerana ma dhammaan. dadkaas ayaka ee hadda mucaaradka ee aniga igu soo biiray waagaas way la shaqeynayeen toos ay ula shaqeynayeen aniga hadda igu soo biireen kamana xumi welcome cid kasta oo igu soo biirtay welcome soo dhawaada waynu soo dhaweynayaa. waxaa dhacday markay shirkii jaraa'id qabtoon ay cambaareeyeen laamigiyo istaag waa u caytamay siyaa qof mas-uul ahayna u caytamay. shalay waxau la kulmay nimanka horjoogayaasha ciidamada nimanka waxau la kulmay sida taliyaha booliska taliyaha militariga taliyaha nabad sugidda taliyaha gobolka Banaadir macallin maxuu ahay magaciisi macallin Mahdi raggaas oo la kulmay
وحور المكان إيجا حقا إليها يا وإن لويرة أيوه وشريف شيخ أحمد وعبد خير الدين ومحمد حسين رابلة وعبد الرحمن عبد الشكور ونيك اللي يرى حسن علي خيره جعفر رقم مدحضة عبد اسماعيل سمتر تتكدن حليبان ندا وحدن هلا ويرروز مقالة أفرتك يسكحيرة قدها قلا قف قري ستة وانا أنيقا أمر قادم ماركي كروز حالي مقالة مقدشو يا عالم كدن وحا كفر مبوخ وحا لليه بلان واتكت ومر هوري تكت شبلان واتكت ومر هوري تكت كوفر قلبيت iyo labada maamul goboleed oo kale oo hirshabeel iyo galmudug aga kuma taagna nimankii asaga shala meesha geeyay oo markii farmaajo weerarayay ka badbaadinayay na hala weeraro waa heeryadiisii cunay waa fashilmay markuu ogaaday inuu fashilmay oo maradii ka dhacday ayuu wuxuu yiri ma taqaan yaa maqofiga harin abuuraha qodo shacabka baabii barakada dhulka laga baxo war dhulka laga baxo oo maalin walba leeyahay wixii uu maaragtay oo xaraashanaya wuxuu ogaaday inuu fashilmay Itoobiya wuxuu aadaa macnaha kullayta maradu ka dhacday ama iyadana wuxuu ka shaqshaqataa meeshaas ayaa sharaf darweynu ka dhacday nimanka la weeraro yiri askartii waa la yaabtay horjoogayaashii ciidamadu waa la yaabeen war waxay dheen xasanow 10 aagaan ugu furan oo kii argagixisadu ka mid yahay oo Puntland ka mid tahay oo Jubbaland ka mid tahay oo ummadii oo dhan ay naga soo horjeedo war xasanow naga daa xamar dagaal ka ridin amarka qaata soo qabta laaya xirxira بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وروح محاكسية وروح محوية وحكالو يسوق قارتي هذا المذوبة ايو اساقين هنا يسكحيين هذا المذوبة يجري دور شلال على الليضة وقف يحط وحمر براندري على قبا على الليضة مقدشو وانا يأفر قبل شن تقمو أفر تقمو وانا تقلي مريف لهلا رحم وين أسويري ما بتكردين ماشي ما هو سامي قيبس يور أساقين وحروا سامي قيبس حتى المركة أنا نتكرين حتى ما حانسو شاقين ناهور ونا مطلقة وحكولها هين يا مقال مدحض حانسو شاقين ناهور بينما هذا مركة ماشي حكامة جيران baarlamaankii abaabulow ku jira sidii ninkan meesha looga eryi lahay xamse cabdi barre xalow hadlay waxa uu yiri xaaladdu waa serious dalka Soomaaliya godow ku dhacay waa kala tagay meelo kamid ah badanna ajnabiga qabsaa xaaladuna ma fiicno xaaladdu aad u leedataa xamse inuu xasan ka raja dhigay ayaa halka xal ka soo baxday waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed anigoo ah Cabdullaahi Maxamed Maxaale oda Soomaaliyeed inaan la hadlo Soomaaliyey galabta waa dhaarana hor Ilaahay aan ku dhaarana magaca Ilaahay wuxuu hayaa ma jiraan xasan dalkuna waa tagay war dalka waxa laga caymiyo waroy hadalkayga qaata warqabiilka iska daaya warqabyaalada iska daaya war kala googo'a iyo kala qoqobka iyo kala tagida iska daaya markii Itoobiya inay qabsato oo inay laydo oo 20,000 100,000 oo wacal in ku dhaxdasho markaas aad xusuusadoontiin markii Itoobiya inay qabsato oo 200,000 oo wacal ay meesha ku dhasho oo nin walba gabadhiisa iyo islaantiisa ay meesha ku kufsato maalintaas aad xasuusadoontiin waana gaari doontiin waa gaaraydin ninka in la hadlaa waa oda Soomaaliyeed waa nin waayaraga waa nin wax badan oo ka soo hadla la arkay war Soomaaliyeed meesha isaga kaca war dalka hal badbaadiyo kooxda xamar joogta ee siyaasiyiinta iyo ciidamada waxgaradka ah dhammaan xasan macalin gurgurta waa in filada laga eriyaa wax kala ma furra Soomaaliya waa in xasan laga eriyaa abi axmeda ku soo kor qubaystay abi axmed oo nijaasa
oo gaala aan ku soo kor qubaystay si degdega ninkaan meeshaan looga eriyo sidaasaan ku soo gabagabeeyey soomaaliyana farad allah u furo maanta waa maalin jimco ah waxaan ku talinaa oon ku baaqaa in maaragtay dagaalada socda la joojiyo dhiigga qubana ha la joojiyo aan midoowno ninkaana meeshaan laga eriyo soomaaliyana dowlad daafici karta ha loo dhiso meeshana ha laga kaco war ilaahayna ha laga baqo ha la tooba keeno dadka xasan macalin gurguursha baaba'shay wixii mayda oo bannaanka lagu daadshana ha la aaso wixii nool oo guryihii kala baxayna meelay ku hoydaan ha loo raadsho sidaasaan ku dardaarmay anigoo ah cabdulaahi maxamed maxaal oda soomaaliyeed assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.